Ku soo dhawaada maadadiinii farqurxinta Laatiinka noocii koowaad ee Italic kow casharkii 18aad. Casharka kan 18aad waxaynu ku qaadan doonaa shuruucda nooca kan Italic kow xeerar aynu ku qaadan doonaa haddii la yiraahdo buuggii farqurxinta leemaha lahaa waa la iskala soo baxay. waa buug caadi ah ayaa la soo qaadanaya xilligan in wixii ka dambeeyo buuggan caadiga insha Allah xeerar ilaa 3 xeer ayay leedahay farqurxinta. 3 le xeer ayaynu ku dhigi doonaa haddii la yiraahdo oo ku leemankii oo dhan leenkan oo kala markii aan ku soconayo ama leenkan oo kala markii aan ku soconayo wuxuu noqonayaa leen dhaxbartan u yani wixii kor aadayna kor ayaa u bixinaysa, wixii hoos aadayna hoos ayaa u bixinaysa, wixii kale ee dhaxda ku soconayeen halka ay ku socon doonaan haddii la yiraahdo. marka saas ay u dhigaysaa. marka haddii aynu bilaawno waxaan ku bilaabi doonaa haddii la yiraahdo ilaa waa 3 xeer weeyaan yani shuruucdii wixii lagu ilaalinayo. xeerka koowaad waxaa noqonayaa labadii lilaahiya lama loodin karo xeerka koowaad markii aynu wax ku qiyaasayno waa xarafka L. xarafka L xarfahan sida eedan oo kaleeto dhiidan oo kaleeto markii xarfaha kaleeto lagu jimeynayo oo yani xarfiye dhaxda qabsanay lagu jimeynay halkaas ay biida ka soo laabanaysa ama dhiida ka soo laabanaysa ayaa eeda iyo ayda lagu jimeynaya. markaas yani oo meeshaas ka waxeeyo ayaga ayaa lagu jimeynaya. laakiin xarafka L oo kaleeto malahan meel lagu jimeeyo saas awgeed wuxuu noqonayaa in la qiyaaso ayuu noqonayaa oo aydo kaleeto meesha dhaxbartankiisa kala lagu qiyaaso. marka waa labadii lilaahiyo lama loodin karo. marka saas awgeed xarafka L wuxuu noqonayaa xeerka koowaad oo siga meel looga qiyaasa malahan. waa marka meel asiga oo yani looga cabiro malahan laakiin waad qiyaasaysa oo kaliya saas ay ku qiyaasaysa xarafka L. oo markii aan ku aadinayo eedan xagee ku aadiyaa maadaama ay dhaxda ku qormisay meesha dhaxa ayaan ku aadinayaa. oo markii hadda halahan yani xariiq hor laga soo marsiyo waxa la rabaa in wada qabsado ayaa la rabaa xariiqaas yani kor oo leenka dhaxa ayaa halkaas ku soo aadayo. marka kaas waa xeerka koowaad. xeerka labaadna wuxuu noqonayaa sida tan. aan eegno ummadda Soomaaliyeed xeerka labaadna wuxuu leeyahay yani meel looga cabiro ayuu leeyahay oo eedo kale xariiqa dhaxda ah ayaad ku cabiraysa yani xarfiye dhaxda ku qormayay yani ku waxaynaysa waa dhamaantood imta halka ay ku egto xarfiye dhexe meel lagu cabiro ayuu leeyahay xeerka labaad oo saas ay ugu cabiraysa waana xeerka labaad siga aad ayuu fudud yahay. xeerka saddexaad 3 iyo xaas baa yiri عفوا meesha yaxaasa ayaan ka raray gacanta ayaa ku dhacday xaada. yaxaas baa yiri intaan yaabay baan yuumbaday xeerka saddexaadna waa xarfihii hoos u soo babaxay weeyaan ayagana hoos ayaa soo aadisiinaysa oo leen hoose oo ku cabiray ma jiro laakiin qiyaasi ayaa soo sameynaysa sida xarfaha hoos soo baxay yani waxay ahaayeen ilaa iyo 5 xaraf ay ahaayeen sida 5tii xaraf oo aynu soo dhigi jirnay ayagana waa qiyaasaysa hoos ayaa u soo bixinaysa 5tii xaraf oo leen hoose oo ku hagay ma jiraan. waa xeerka saddexaad weeyaan. 5 xaraf waxay kala ahaayeen yani xarafkii G
oo ugu horeeyay soo qaadanayni يعني isaga waa soo qiyaasaysa oo leen hoose oo ku waxaysmi ku xadiday ma jiro waxa kamid ah xarafkii j oo soo qaadanayni asigana sidoo kale waa soo qiyaasaysa xarafkii j waxa kale kamid ah xarafkii p asigana sidoo kale waa soo qiyaasaysa xarafkii p oo leen hoose oo ku hagayo ma jiro waxa kamid ah xarafkii q asigana leen hoose oo ku hagayo asigana ma jiro waxa ugu dambeeyay xarafkan y oo hadda aynu qaadanayno asigana yani waa soo qiyaasaysa marka shanta xaraf ay ahaayeen xarfii aynu soo qaadanay hoos u baxay ayaga marka waa soo qiyaasaysa hadii waa la yiraahdo ashirkeeni marka xariin xeerarka iska fudud yihiin xeerkan koowaad baa ugu adag oo xarafka l ah oo meel lagu qiyaas aan lahayn yani meel yani lagu qiyaaso oo toos aan lahayn laakiin iska qiyaasaysa oo kaliya inta kale ta meel kale lagu qiyaas ay leeyihiin marka buuga caadiga marka aad ku qoraysid qaabka ayaa isticmaalaysa insha Allah farqorxintana si ay kugu badato buugan waxaad ku isticmaalaysaa jumladii qoraal badanna ka soo sameey oo buuga caadiga aad ku qorayso casharkaas waxaa soo gudbinaya qoray Maxamed Cabdalla Waasuga wixii faahfaahin ah waxaad igala soo xiriiri karaysaan nambarka aan qorayo waa inoo casharka xiga haddii waa la yiraahdo